مجاهد كان waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Taako Timoweyne wuxuu kamid ahaa macaawisleyda shabeellada dhexe rag ugu horeeyay xooha la shaqeeyay Hibaad Cali Dasar Allah u naxariistay iyo Nuur Cali Jumbur ragii la shaqeeyay kamid ahaa ragii aas macaawisleyda shabeellada dhexe ayagoo 9 nin ama 7 nin meelahaas u bacdhigi kara al-shabaab oo 80 kiiloomitir cadala ka soo lugay ayaa xoo ku weerar ka laaba karo naftooda halis u galiyo kamid ahaa laakiin muxuu maanta leeyahay ma taqaanin maanta mushaar dawlad ma qaata laakiin wuxuu leeyahay qof kasta oo al-shabaab oo koonfur galbeed ama Jubbaland ama Galmudug ama Hirshabelle lagu dilo ajirkeeda qayb ku leeyahay sababtoo al-shabaab loo babacdhigi karin oo laga cabsaay oo la leeyahay culimada lama xanto dhinacyada taagan yihiin wari hadlinina la leeyahay oo dadka la adoonsaday ayuu dagaalamay taas marka waxa la rabaa Soomaaliya hadii abaaleeda deegaanada xoreey iyo kuwa hadda dhinaa doono inta noolna in la maamusay mudan yihiin inta ku shiido Hibaad Cali Dasar iyo Nuur Cali Jumbur iyo ninka ka horeeyay Ibrahim Afweyne ahay iyo rag la midka iyo rag hadda shahiida iyo kuwa u shahiidaba in la maamuso oo diiwaanka lagu daro waxaan la soconaa SYL Talyaani la dagaalameen iyo gumeystihii Ingiriiska la dagaalameen Soomaa iyo dadka leega dadkaas la dagaalameen dadkaas aan la dagaalameyn waxay ahayn dad aan aqoon dhaqankeena diinteena aqoon oo si kala noola dagaashan oo inay gumeystaan raba kaliya laakiin al-shabaab dad diintada sheegay oo magaca islaamka ximbaarsan oo markii aad u jeedo qof sunnada rasuulka muuqata aad istiraal ilaamu ku dil raba heerkaas in gaarsiin kuwa maanta la dagaalama marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay diinta islaamka wuxuu ku bilaabatay si oo waxay ku bilaabatay xoohaay oo yar ay ku bilaabato la cabsaay markii aakhir zamaanka la gaarnasaas ku dhamaanaysa faduuba lil quraba dadka islaamta jooga sugnaato oo diinta ku dhigo diinta xilli ay ka adag tahay dib ina gacanta ku qabato ayaa xoohaay ayaa la gaara hadii ayna sidii wadada ay maraysa waxaan rabnaa nabiga kaleey salaatu wasalaam oo leey سيخرج في آخر زمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وحولي النبي عليه الصلاة والسلام آخر زمان كو حصبح دون قوم لن يرى الشباب محيين لن يرى سوما مقع صد لن يرى ما oo dabaala oo aqli lahayn aqli dileeyeen culimadeena ma dileen dadkeen wax garadkana ma dileen dadka ila dagaashiin hadii run sheegayaan ay aadi lahayn